deegaanka yeelo ka tirsan deegaanada gobolka Sool ayaa waxaa xalay weerar xooggan halkaasi oo ku dhaxmaray ciidamo ka tirsan ciidanka SSC iyo sidoo kale ciidamada maleeshiyaadka argagixisada Islaam oo hogaaminayo horgale gufuro kamid ah horgalada waaweyn ee haatan la shaqeeya taliye Mahad Cambaasho isna kamid ah horgalada maleeshiyaadka argagixisada Islaam ee Soomaaliya ku dhuumalaysanayay deegaanada yeelo waxaana horgaladan ay kamid yihiin horgalayaasha waaweyn oo xilligan ka tirsan beesha dhulbaante isla markaana ilaa haatan aaminsan qadiyada maleeshiyaadka argagixisada maamulka Islaam ee Soomaaliland ciidamada jamaahiirta ayaa xalay shaqdi dhexe oo weerarba ku qaaday horgale gufur oo ku dhuumalaysanaya qaybo kamid ah deegaanka yeelo iyo sidoo kale deegaanada lagu Yogori waxaana deegaanadaasi muddooyinkii dambe ku sugnaa isaga iyo horgale Mahad Cambaashe waxaa la sheegay in ciidamada jamaahiirta ay ka qabsadeen hal gaari iyo sidoo kale laba maxaabiis iyo hubka territoriga u dhaca oo ay wateen ciidamadaasi waxaana waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ay sheegeen in horgale gufur ilaa haatan aan lahayn meel uu jaani cilib dhigay isla markaana xalay fidradkiisa ilaa haatan aan lahayn waxay ciidamada jamaahiirta SSC ku sugan deegaanka yeelo iyo sidoo kale deegaanada ku teesan ay sheegeen in ilaa haatan lagu daba jiro meesha uu jaani cilib dhigay isla markaana sida soo socda ay sheegeen ciidanka jamaahiirta inay si rasmi ah ay gacanta ugu soo dhigi doonaan weerarka ayaa xalay fiidkii ka dhacay qaybo kamid ah duleedka bari ee deegaanka yeelo halkaas oo ay ku dhuumalaysanayeen horgalaha gufur iyo sidoo kale ciidamada ka tirsanaa oo watay waxaana kamid ahaa ciidamadaasi ciidamada ka amar qaata maleeshiyaadka argagixisada Islaam ee Soomaaliland isla markaana gabi ahaanba ilaa haatan aan ku biirin dagaalka lagula jiro maleeshiyaadka argagixisada Islaam ee Soomaaliland ciidamada oo hogaaminaya horgale gufur iyo sidoo kale Mahad Cambaashe ayaa muddooyinkii dambe ku dhuumalaysanayay deegaanada ku teesan yeelo iyo sidoo kale deegaanka Gumeys iyo sidoo kale deegaanka Yogori oo ah laamiga waxaana ay horgaladan ay ka mid yihiin horgalada inta badan la sheegay inay ay daafin jireen laamiga dhaawac iyo dhimashada loo geysto maleeshiyaadka argagixisada maamulka Islaam ee Soomaaliland weerarkii xalay dhacay ayaa laba askari laga dilay isagoo la sheegayo in askar kale oo la socotay halkaas lagu dhaawacay waxaa la sheegay in firdkiisa ilaa haatan lahayn isla dhaawac xulus uu soo gaaray isla markaana oo ilaa haatan lahayn meel uu jaani cilib dhigay horgale gufur ciidamada jamaahiirta SSC ee ku sugan deegaanka yeelo ayaa sheegay inay helayaan ku baadgo ugu jiraan si ay gacanta ugu soo dhigi doonaan ugu soo dhigi lahaayeen horgale gufur oo kamid ah horgalada maleeshiyaadka argagixisada Islaam ee Soomaaliland xilligan ku haray isaga iyo Mahad Cambaashe iyo ciidankooda xaqa durarka SSC xilligan gacanta ay ugu jiraan si ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen iyagoona kamid ah horgalada ugu waaweyn ee ka tirsan beesha dhulbaante isla markaana ku jira maleeshiyaadka argagixisada maamulka Islaam ee Soomaaliland dagaalka gobolka Sool wali xarwaare loo beerin waxaana ilaa haatan duleedka bari ee gobolka Sool isku horfadhiya ciidamada xaq durarka SSC iyo sidoo kale